madaxweynaha Khaatumo Professor Ali Khaliif Galeed ayaa digniin adag waxa uu diray maamulka Puntland xilli uu wareysi dhinacyo badan taabanayay siiyay telefishinka caalamiga Somali News ayaa waxa uu si adag uga hadlay una ku eedeeyay maamul goboleedka Puntland inay ku hayaan deegaanada Sool Sanaag iyo Buuhoodle sheegasho sidayna waa iska hadlow inay igire wuxuu halka ka yiraaho waxa dhageystaaba ka gardaran waxay Puntland ka tahay Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxa quray tahay odayaal dhowr marba inay u yeedho xoogaa dhaqaalaha ku seedseedho cadquureed u tuurto nimankaas wartooda ha ku aadeen tooda ninkaale madaxweynahan ahay oo dastuurka ay faraya inaan anigu dhulkan xukumo war ma xukumo war dadkii waxaan lahaa way tashadeen maamulkooda ay samaysteen kooda ha u taliyo gaalkacayo oo isagu u dhashay yaan gacanta ugu jira gaalkacayo waxaan u malaynayaa inta loo eego ama wadanka uu ka maqan yahay ama gaalkacayo iyo garowga ka maqan yahay baa ka badan intuu joogo duu cid la talinayo ama cid nasteex u yahay war isaga iyo wixii maamulka ku weelaya ha tashadeen danahoodana ha ku aadeen annagu mar walba waxaan diyaar u nahay hadday iyagu miirsadaan wada hadallo iyo nabad ku wada noolaansho iyo daris wanaag wax aan wada leenahay oo siyaasada oo golayaala ma ay jirto waxaan rabaa hoosta inaan ka xariiqo wadaadkaas waxaan u maleeyaa dhidarka leeyahay waxbuu ka hurdo badan yahay mar uun baa danab ku dhaca oo ka markaasuu meesha ugu horeeyay uu jeesan karo iyo u orda dad iyo ood iyo dundumo iyo wuxuu doonayo waa jiidaya wadaadkanu mar uun buu maqlaa shirar baa halka socda ama dadkii baa shiraya wadanahooda ka hadlaya markaasuu sidii dhidarka uu soo hambabaraa oo soo dhaqaaqa waxaan leenahay wadadan ugu baydhayna bal meesha uu ku ordayo hanoo dhaafo marka waraysiga oo dheera ayaa TV-ga caalamiga Somali News TV maruu wax ka weydiiyay sababta keentay xilligan in wada hadallada Somaliland iyo Khaatumo heshiis laga gaaro ayaa waxa uu ku jawaabay Professor Ali Khaliif Galeed waxaan u maleynayaa markii horeba Somaliland iyo Khaatumo hadday isla ogolaadeen inay wada hadlaan xabaal bilaash ma qodaynin waxay u nahaydo ilaa inta ama shirarka ah noqoto ama siyaalo kale lagu kala warqaataba ha noqdeen waxa uu lagu hiranay heshiis in la gaaro heshiiskii talaabadii ugu horeysay oo ah wax weyn macna badan oo leh wixii dambe ee la qaban doono saasay ahayd wax bilaash looma lahayn wax wada hadlaynaa wada hadalkii intan uu dhalay hadda waxaan rajaynayaa in halka laga sii wado sidoo kale TV-ga Somali News TV ayaa wax ka weydiiyay Ali Khaliif Galeed natiijada wada hadallada u dhaxeeya Somaliland iyo Khaatumo ma waxa doonaysaan inaad heshiis la gaadhaan xukuumadda waqtigeedu uu sii dhamaanayo ee uu hogaamiyo madaxweyne Silaanyo mise waxa aad filanaysaan doorashada ka bacdi in heshiiskaasi la wada gaadho waxa uu ku jawaabay sida tan uma eka waxay noqonaysaa haddii bilmithaal imanka wada hadalladan oo reer Somaliland oo dhan ku dhan yihiin muxaafid iyo mucaarad dee walwal nagama hayeen doorashada haddiise ay hadda tahay waa gacan uur ku jirta waa bisha November 13keeda axsaabtan tartamaysa inkastoo uu yahay waxa hadda la dooranaya madaxweyne uun laakiin de madaxweynuhu wuxuu noqonayaa mas'uulkii guud ee Somaliland annaguna kullay dad ahaan waa jiraan dad isdiiwaan galiyay oo aan tiro badnayn oo reer Sool iyo Sanaag iyo Cayn arrimahaas kullay waxa aanu ku hiranaynaa inaanu in badan oo istiraatiijigana ku heshiino wixii noo hada oo qaarkood ay noqonayso istiraatiijigna lala sugo doorashada ka bacdi